Hi there and welcome. I hope you are struggling and looking for means and ways to improve your English, isn't it? So, in this lesson, I'm going to share with you 5 things that you need to practice every day. And if you make it a daily habit, for sure, they will make you more fluent and a professional English speaker. Dhammaan soo dhawaada. So, waxaan rajaynayaa luqadda Ingiriisiga ku hadalkeeda in ay ku dhibayso, right? Masha Allah. So, jawaabtada haddii aad tahay, muuqaalkan waxaan rabaa inaan kugula wadaago 5 waxyaabood oo kaa caawinaya haddii maalin alla keena aad samayso oo aad dhaqan geliso luqadda Ingiriisiga ah inaad ku hadli karto. So before I begin the video, I want to thank every one of you for helping us reach this great milestone of 100k subscribers. Wow, that's so amazing. Waxaan halkan ugu mahadceliyo dhammaan intana soo garab socotay oo ina soo taageertay safarka dheeraa oo aan ku nimid 100,000 subscribers, masha Allah. Marka kanaalkan aan bilaabayay waxaa islahaa Soomaalidu ma jeclo waxbarashada, laakiin waxa isoo baxday waxbarashadu in aad jeceshihiin muhiimna ay tahay. So insha Allah sida kanaalada madadaalada aad u taageertaan annagana inoo taageer insha Allah wax badanna way naga faa'iido doontaa hadii la yiraahdo. Tan ugu horeysa oo muhiimka ah oo ka caawinaysa luqadda Ingiriisiga ku hadalkeeda waxa waaye read the newspaper. Newspaper waa journalka in aad akhriso on daily basis maalin la keeno, okay? So by reading the newspaper waxa raacaysa these steps. Newspaper wuxuu leeyahay front page ka ugu horeeyo, page-kaasna oo waxyaabaha headlines ka ah oo markaas warka uu ku saabsan yahay ba halkaas aad ku arkaysaa. So isha mari. So newspaper markuu wuxuu ka caawinayaa in aad halkaas ka hesho more words, phrases, expressions, erey ku cusub, okay? So ereyga aad isdhaxdo oo kale muhiim waaye waxaa sameynaysaa waa kala soo dhaxbixaysaa, okay? So erey walba markaas aad newspaper ku aragtid focus ka hasaarin. Erey qaarkood aad isleedahay muhiim waaye halkaas ka soo dhaxdooro, okay? Sababtoo erey walba hadaad tiraahdo waqtiga kugu dhumaa, laakiin adiga ereyada muhiimka ah halkaas kala soo dhaxbax, dictionary ka raadi macnahooda, then jumlooyin ay ku jiraan insha Allah raadi, adeegsana oo dhaqan gali. Hadaa dhaqan galin weyso ma shaqeynayso, waa inaad dhaqan galiso oo adeegsato. Midda labaad, watch English TV shows, okay? Inaad daawato yani showada oo English ka ku baxaan, okay? Waxay noqon karaan documentaries oo English ku baxaan, waxay noqon karaan news ka caadiga ah sida Al Jazeera oo kale, BBC oo kale, CNN oo kale, waxay noqon karaan sports oo kale ku ciyaaraha ka warraman oo kale, yani anything markaas adiga aad jeceshahay oo yani TV show ah in aad daawato. So TV show-ga marka aad daawato wuxuu ka caawinayaa 2 waxyaabood. Listening skills yani dhageysigaaga in aad wax aad maqli karto oo luqadda Ingiriisiga ah. 2 wuxuu ka caawinayaa pronunciation, dhawaaqa saxda ah. Are we together? So marka TV show-ga marka aad daawatid waxaa samaysaa asagoo subtitle la raadi, marna asagoo subtitle la'aan daawo. Yani subtitles waxa waa asagoo ereyada meesha uu ereyada ay meesha ku soo qormanayaan, okay? Yeah, that's good. So marka TV show marka aad daawanaysid qof markaas adiga luqadiisa fahmi karto oo kale haduu jiro oo si fluent luqadda ugu hadlaya waxa sameynaysaa waxaad isku dayaysaa inaad joojiso waxa aad daawanaysid kadibna aad iska dooni karto qofkaas hadalkii aad ka daba dhihi karto jumlooyinka uu dhahayo ama waxyaabaha uu adeegsanayo, okay? So taas hadda sameyso every day maybe in 30 minutes 30 daqiiqo maalin la keeno ku hadalka luqadda Ingiriisiga uu ku fududaanaya. Are we together? That's good. Midda saddexaad, learn 5 new words every day. In maalin alla keena 5 erey aad barato, okay? So marka waxaan rabaa sida hore ay u baran jirtay si ka doon inaan ku sheego. Okay, so ereyadaas waxaa ka baran kartaa ama TV show-da aad daawanaysid, waxaa ka baran kartaa newspaper-ga markaas akhrinaysid, buugaag kale markaas adiga xiisaysid, waxay noqotaba aad maalin alla keena 5 erey oo cusub inaad baratid. So marka 5tan erey waxaa la rabaa in 3 waxyaabood oo kala qaadid. Ereyga markaas aad baratay haduu yahay erey verb ah, waxaa raadinaysaa asagoo noun-kiisa ah, ereygaas noun-kiisa raadi asagana baro, okay? Asagoo adjective-kiisa sifa ahna baro oo dictionary ka raadi, asagoo adverb-kiisa ahna raadi. So markaas erey walbo 4 nooc baa u baranaysaa, asagoo noun ah, asagoo verb ah, asagoo adjective ah iyo asagoo adverb ah, okay? Intaba Google-ka ku qoraysaa waa helaysaa. Sidoo kale jumlooyin jumlooyinkooda ka raadi dictionary ka raadi oo Google-ka ka raadi halkaas ka helaysaa. Ereyga waxa la in a sentence aad leedahay, okay? Dictionary ku qoraysaa waa helaysaa, okay? So marka ereyadaas waxaa sameynaysaa meel baa ku qoranaysaa ama book soo goda ama laptop ku qoro
maalin halkeen taariikhda iyo erayada maalinta saabaratay jumlooyinkoodii ah soo isku day inta maalinta gabalkuusa ku dhicin in aad kormarto subaxina inta aad kuwa kala aad baranin in haddana aad kormarto sidoo kale aan isku dayda inaad adeegsato soo shaqadu way dheertahay wax fudud ma ahan okay sababta luqadda ingiriisiga marka baranaysid waa xirfad qofku markuu baranayo waxa loo baahan yahay more practice tira badan loo baahan yahay okay soo marka waxa la rabaa wix marka inaad xiriir u samaysid annaga Soomaali hadaan nahay caajiskana tira badan wax waa bilaabana waa joojinana soo waxa xiriir ah u sameynaa si consistently out together that's good mid afraad make English sentences in your head okay yani in aad jumlooyin luqadda ingiriisiga ah aad maskaxdaada aad ka soo dhisto maalin alla keeno so your focus will be what's happening around you wix markaas aagaaga ka dhacayo waxa sameynaysaa yani xagelisa imagination mala ayaa gelisa adoo xaaladaas ku sugan salahan kale adoo dhakhtar hor joogo adoo meel wax ka soo iibsanayo kale adoo bas saaran oo kale okay so you try making sentences adigu waxa sameynaysaa imagination so salahan kale xari kartaa gaari saaran tahay I'm so glad to be in this bus you know the seats are well arranged you know the bus is moving so fast and I hope we will reach safely yani adiga markaas jumlooyin waxa sameynaysaa about the situation markaas adiga aad ku sugan tahay okay so the more you do and make more sentences you will be training your head okay so waxa la rabaa in iska saartid maskaxdaada ka saartid wax la dhaho direct translation yani in aad u fakarto erayada af Soomaali ahaan aad ku raadiso marka af Soomaali aad ku raadiso English u bedesho erayga saxda ah in ay xilwiso ayaa laga yaabaa adiga waxa sameeysaa cabsanin jumlooyinka isku day in ay soo bixi karaan hadda qalad sameeysid waxa dhib ma lahan you know the more you practice ada marka dambe la qabsan doon abi together that's good mid shanaad recap your day recap waxa jira inaad saa u soo kormarto maalintaada wixii maalintaada aad qabatay oo kale okay so this is an important exercise that if you do it then you can have you know some fluency in English and this exercise can waxa sameyn kartaa before you go to bed inta aad sariirta aadin aad seexanin telefoon xagaas iska dhigaysa wax kale aad qabanaysid ma laha so what you do you just start imagination about telling a friend about your day malo waxa gelaysa saaxiibka ama saaxiibada aad uga sheekeynayo wixii maalintaada sida ahayd maalintaada yani waxa soo qabatay aad uga sheekeynaysa maybe while at school at college at work yani markaas maalintaada say ahayd baa uga sheekeynaysa okay yeah so marka jumlooyin baad dhisaysaa maskaxdaada jumlooyin ka dhisaysaa si maalintaada ku bilaabatay tartiib by tartiib okay abi together so sidoo kale waxa sameyn kartaa inaad ka hadasho your plans for tomorrow wixii berita aad sameyn lahayd oo kale in English and tomorrow halkaas aada waxa ay qorshaysan you know halkaas in booqdo waay all those things in English in a semester waay so marka exercise kan inta aad seexanin adoo wax kale aan qabanin marka maskaxdaada aad sameeyso aad ku seexato waa wax muhiim u ah maskaxdaada iyo carabkaagaba so insha Allah waxaan rajeen doonaa shantaas talo inaan qaadan doono waxaan dhahay mid ugu horeyso read newspaper journalkan akhriso mid labaad inaad 5 eray barato maalin arkano tan saddexaad watching English TV shows mid afraad make English sentences in your head tan shanaadna recap your day in maalintaada aad kormarto so masha Allah waxaan rajeynaa muuqaalkeena inaad ka heshay wax badan aad ka faa'iiday shantaas talo hadii aad dhaqan geliso oo aad maalin alla keena caado ah ka dhigto waa si xiriirna u sameeyso isbedel weyn ayaad iska dareemi doontaa xagga ku hadalka luqadda Ingiriisiga way fududahay marka wax lagu sheegayo laakiin waxa muhiim ah wixii inaad dhaqan geliso okay oo aad markaas caado aad ka dhigato muuqaalka noo like gareeya like-ta muhiim ay inoo tahay si aan u arko markaas inaad ka hesheen sina share garee oo meel walba ku share gareeya so insha Allah muuqaalka inta ku kulmi doono khayr badan baan ku ogahay see you soon in the next lesson